shan qodob oo sababay khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta. Xiriirka u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa marar kala duwan galay khilaaf siyaasadeed iyo mid amni, kuwaas oo saameyn ku yeeshay wada shaqaynta labada dhinac. Khilaafkan wuxuu salka ku hayaa dhowr arrimood oo muhiim ah. Kow, arrimaha siyaasadda iyo madax-bannaanida Soomaaliya. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in Imaaraadku uu faragelin ku sameeyay arrimaha gudaha ee dalka, gaar ahaan la macaamilidda dowlad goboleedyada qaarkood iyadoo aan oggolaansho ka helin dowladda dhexe. Arrintan ayaa dowladda Soomaaliya u aragtay mid dhaawacaysa midnimada iyo madax-bannaanida qaranka. Lambar 2, tababaridda ciidamada iyo lacagihii la qabtay. Sanadkii 1918, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ku qabatay lacag malaayiin dollar ah oo Imaaraadku siday, taas oo la sheegay in ay la xiriirtay mushaarka ciidamo ay Imaaraadku tababari jireen. Dowladda Soomaaliya waxay ku dooday in lacagtaasi aan si sharci ah loo soo marin hay'adaha dowladda, taas oo sii hurisay khilaafka. Lambar 3, arrimaha dekedaha iyo sidoo kale heshiisyada ganacsiga. Imaaraadka, gaar ahaan shirkadda DP World, ayaa heshiisyo la gashay maamul goboleedyada Somaliland iyo sidoo kale Puntland oo ku saabsan dekedaha. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa diiday heshiisyadaas iyadoo ku tilmaamtay kuwo sharci darro ah, maadaama aan lala socodsiin ama aan laga ansixin dowladda dhexe. Lambar 4, saamaynta khilaafka khaliijka. Khilaafkii u dhexeeyay dalalka khaliijka ee Qatar, Imaaraadka iyo sidoo kale Sacuudiga ayaa saameyn ku yeeshay Soomaaliya. Soomaaliya waxay qaadatay mowqif dhexdhexaad ah, taasoo Imaaraadku u arkay mid aan la jaan qaadin danahooda siyaasadeed. Lambar 5, joojinta qaar ka mid ah iskaashiyada. Khilaafkan awgiis, Imaaraadku waxa uu joojiyay barnaamijyo tababar ciidamo iyo taageerooyin kale oo uu siin jiray Soomaaliya, halka dowladda Soomaaliya ay xaddiday doorkii Imaaraadku ee arrimaha amniga. Ugu dambeyntii, Soomaaliya ayaa qaadatay go'aan ah in ay gebigeedba iska laasho dowladda Imaaraadka Carabta, maadaama ay ka dhex arki weyday danaheeda, ayna u aragtay dowlad inay kala qaybiso rabto Soomaaliya.